mid kale oo iyaduna waayadan la sheego oo maryo loo tushay oo la yiraahdo maaqar iyo waxaas kab ninka u dhiibanaysa baa leeyahay kabtiisa la eega dadka hadda waxa wada ama hormuudka ka badidooda ay u badan yihiin dad daroob awda qorshe ay dawladda Puntland hadda wado oo gobolladan ama bariga ama Highland ama Sanaag macdan looga qorayo iyo macdan looga qodayo iyo heshiis ay gashay midna toor cad ma warkaas laakiin 1998 dawladda Puntland wax ka dhisteen caqabado badan baa soo maray isku qabsi badan in lagu sheego baa soo maray 2023 waxaan jibinay bridge-kii oo ahaa referendum in qof iyo cod aan ilaalinayn oo military u keenin oo si nabadgelyo geeska gees uga dhacay waxa meesha laga saaray oo hadda haba yaraatay aan wax door ku lahayn dhulkan maamulkii Soomaaliland oo wareerin jiray dhulkan oo hadda marmar meelaha ka soo dushi jiray dhowr qodob oo kale oo guuh bulshada ka jira inaan iyagana wax ka ilaaliyo xamaalmaha kan aad u badan oo aad ku aragtaan social media ama qaar ka mid ah dadweynaha in laga hadlo macdan wax la yiraahdo macdan baa la qodayaa macdan baa loo socdaa waftiga macdan buu yimaado soo ma jirto arrintaas aan rabaa inaan ka hadlo marka koowaad waxaan rabaa inaan idin xaqiijiyo inaysan jirin sal iyo raadna aanay lahayn daraasad ama assessment macdaneed oo dawladda Puntland ay samaysay haba yaraatay ma jirto waxaan kaloo rabaa inaan idin sheego inaysan jirin qorshe ay dawladda Puntland hadda wado oo gobolladan ama bariga ama Highland ama Sanaag macdan looga qorayo iyo macdan looga qodayo iyo heshiis ay gashay midna toor cad ma warkaas dadka dareenkooda iyo aragtidooda sax maaha in wiilal yar yar ay fuse ku raadsadaan dadkuna ay wax la yiraahdo fuse baa jiro lacag laga helo marka wab badan oo qaraabada aba xoogaa naga hela oo YouTube iyo naga helay hadda aragtaan iyagoo wax aqriyaya oo la saanaalay horta wax inta dhaafsiisan maaha horumar in la sameeyo iyo mashaariic in la qodo iyo in macdan la qodo iyo waxyaabaha hesiyada waaweyn oo Soomaaliya oo dhan leedahay bay ka mid tahay waa hadii meel wax ka dhaceen wax la diiday laftigeedu marka aan leeyahay waxaan uma jiraan inaanay jirin baan idin sheegay laakiin horumar waa loo baahan yahay oo in horumar la sameeyo oo dadku kheyraadkooda ka faa'iideystaan waaga la diiday oo aad maqashaan looma diidin dadkuna ma diidin hadda xusuusataan waa joogaan odayaashii uqaashii horumar ma diidin mashruuc in la baarana ma diidin lama diidin waxa la diiday waxa ay siiqada loo maray adduunka nidaam baa jira haddii horumar meel laga sameeyo wax saar kheyraad la sameeyo waa in deegaanku percentage leeyahay shaqaale leeyahay door leeyahay وسيدة صحراء وأساس وحل الديدنا تاسبي وحن مركز ربائنا عن الحقيقة موضوع أسونا مجيو هدي وحتى مستقبل كلاجة فكرنا وإنوي هاي مد برشدة وفائلين وإيوه أيلين خلاص وإيوه أي هدير ربان ليال كران هدير ربان الدين كران سكذا بأنه ودت كان مثل dad hadda booga baqaayo dalkan iyo dadkan manihiin cid walba waa la yaqaanaa koorkeeda iyo waxa ay gashay iyo waxa ay gelin taas anaga horta idin xaqiijinayna yaan waqti la idin kaga lumin wax la mid ah mid kale oo iyaduna waayadan la sheego oo maryo loo tushay oo la yiraahdo maaqar iyo waxaas deegaankan waa la yiraahdaa waxa la oran jiray magaca maaqar meeshu ka yimid waxaan rabaa inaan maanta ka weligeena ka hadlayno aragteen iskeedaba waxaan uga hadlay waxaan macna lahayn inaan ka hadlo ma jiro taa hadda waxa la waday 6 bilood waa maqlaay maalinta markii ugu horreysay aan ka hadlo taa kalena waa maqlaay muddo aragtida saxda ah waxa weeye
ereygaas waxaa la oran jiray dhulka xeebaha reer gaarana ma ahayn ilaa soon berbera u dhow ilaa sanaagta beri baa la oran jiray waxaa erey xadaarad ku yimid dadkan laakiin 1998 dowladda puntland wax ka dhisteen caqabado badan baa soo maray isku qabsi badan in lagu sheego baa soo maray 2023 waxaan jirnay bridge-kii oo ahaa referendum in qof iyo cod aan ilaalinayn oo military u keenin oo si nabadgelyo geeska gees uga dhacay waxa meesha laga saaray oo hadda haba yaraatay aan wax doora ku lahayn dhulkan maamulkii Soomaaliland oo wareerin jiray dhulkan oo hadda marmar meelaha ka soo dushi jiray waxa hadda laga baxay arintii dispute la sheegi jiray oo 2 asbuuc ka hor oo jahada aragteen warbixinteeda iyo maapka ay soo saartay UNOJA oo hay'adda kamid ah hay'adaha UN ugu waaweyn ay dhulka sanaag oo dhan ay ku qortay Puntland meelo badan oo inta badan ay ku qortay dhulka sanaag oo dhan ay ku qortay Puntland sanaag waxaan ka wadaa sanaagii Highland iyagu inta badan waxay isticmaalaan maapkii 1991kii marka ma jirto wax dunuufa oo hadda sababi kara in waxaas laga hadlo waxa kale oo Soomaalidu ku maamulada kab ninka u dhiibanaysa baa leey kabtiisa la eega dadka hadda waxa wada ama hormuudka ka badidooda waa laga yaabaa dad shakhsiyaad oo niyad wanaagsan oo inay ku jiraan waxay u badan yihiin dad daroob waxa la yiraahdo qof markuu tiisa maareyn waayo goormaan ka hadli karaa horumar goormaan ka hadli karaa ummad inaan shiriyo goormaan ka hadli karaa maamul marka horta tayada shakhsiga ah meel soo saar dadkaas marka warkooda yaan waqti leedin kaga lumin oo ay ka mid yihiin kuwa fiis ka raadsanayo YouTube in lacag uga soo dhacdo dadka la mooday damiirkooda iyo masaalixdooda aragtida guud waxa weeye dalkan nabadgelyo ka jirta adeeg dawladeed baa ka jira maanta haddaad halka ka baxdo oo dekada ka soo adeegato oo gawaaridan halka goormay baxaan dhaar afarta habeenimo baxaan Soomaa xilligay rabaan bay soo noqdaan meelo badan oo xataa magaalooyinka waaweyn oo Puntland ama ammaanka haysan looma baahna inay WhatsApp group ku jiraan oo waxaan jirin kiilaan oo yiraahdaan waxba la qoday waxa la rabaa dalka inay wax ku soo celiyaan waxa la rabaa iskuulada casriga ah la dhiso la maalgeliyo waxa la rabaa dhulkii xeebo gobolada Puntland maanta Soomaalida kale intaan aadi mudug oo kale tusaale u soo qaado dekada ugu weyn baa laga dhisay ma dawlad baa dhisay facility way samaysay laakiin dadweynaha dhisay